السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا قيمة هي قدرين تمضرون ميل كستود عالم كجوجتان كسو دوادا برنامج كفيد وناكسن واد كداونيسان channel قريتشي قود waxaan idin la socodsiinaya aniga oo afakaada Maxamed Axmed qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka Fiid wanaagsan waxa kamid ah lix qof oo ku dhimatay magaalada Mombasa kadib markii ay ku dhaceen god hogaamiyaha xisbiga Wiper oo sheegay inuu san wax walwal ah ku beerin kulankii dhaxmaray Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta iyo maamulka magaalada Beled Xaawo oo xidhay xuduudda u dhaxaysa ismaamulka Mandheera iyo Beled Xaawo qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena Fiid wanaagsan hadda u diyaar garooba iyaga faahfaahsan lix qof ayaa ku dhimatay halka mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii ay ku dhaceen god dheer oo ku yaala xaafadda Mushumuroni ee magaalada Mombasa ismaamulka magaalada Mombasa ayaa shalay waxa ku dhintay gelinkii dambe lix qof kadib markii ay ku dhaceen godkaasi oo ku yaalay xaafadda Mushumuroni halka agaasinka dhanka kormeerka ee Mombasa Maxamed Amiir uu sheegay in dadkaasi ay dhibaatada soo gaartay lixdii maqribnimo waxa uu intaasi ku daray in loo sheegay in lixda qof ay eegayeen haweeney aroosad oo la soo galbinayay iyaga oo godka dul taagan ka hor inta aysan ku daadanin Mr. Amir ayaa intaasi ku daray in hawlaha samata bixinta ay ka qayb qaateen wasaaradda caafimaadka waaxda debdemiska shacabka iyo maamulka hoose ee Mombasa hal qof ayaa dhacdadaasi dhaawac uu ka soo gaaray waxaana lagu dabiibayaa isbitaalka Sayid Faaduma meydka lixda qof ee dhimatay ayaa la kala geeyay goobta meydka la dhigay ee isbitaalka guud ee gobolka Xeebta isbitaalka Sayid Fatima iyo Jokam Fakada Maxamed Axmed barnaamijka Fiid wanaagsan hogaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa sheegay in aysan wax walaaca ka qabin kulankii dhaxmaray jumcihii madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee NASA Raila Odinga qodobkaasi oo faahfaahsan waxa ay noo aqrinaya wariye Faisal Bishara Ligo Kalonzo Musyoka hogaamiyaha xisbiga Wiper ayaa sheegay in uusan ka walaacsanayn kulankii jimcaha dhaxmaray madaxa mucaaradka NASA Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta hadalkan ayuu jeediyay xilli uu ka qayb galay munaasabad duuga oo ka dhacday ismaamulka Machakos arintan ayaa imaanaysa iyadoo wili ay soo tarayaan siyaabaha kala duwan ee looga hadlayo kulankii ay yeesheen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka iyo madaxweynaha haatan talada haya shacabka Kenyaanka iyo siyaasiyiinta dalka ayaa qaarkood soo dhaweeyay halka kuwa kalena ay ku tilmaameen khiyaano uu Raila ku sameeyay garabka mucaaradka gaar ahaan madaxda kale Kalonzo Musyoka ayaa sheegay in ururweynaha NASA uu kulan yeelanayo biri oo Isniin ah kaasi oo lagu ogaanayo sida dhabta ah ay wax u dhaceen Faisal Bishar Faisal Ligo barnaamijka Fiid wanaagsan Nairobi ciidamada dawladda Suuriya ee Bashar al-Assad ayaa qabsaday qaybo badan oo kamid ah magaalada Quuta kadib markii uu maalmihii aan soo dhaafnay ka socday dagaal u dhaxeeya iyaga iyo xoogaga ka soo horjeeda qodobkaasi oo faahfaahsan waxa ay noo aqrinaya wariye Gorad Maxamed Ali madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in duqeynta bariga Quuta ay tahay mid qasab ah xitaa iyadoo dadka loo sameeyo marin ay ka baxaan al-Assad ayaa sheegay in xaaladda bini'aadanimo ay sheegayaan reer galbeedka ay tahay mid been ah hadalka madaxweynaha Assad ayaa ku soo beegmaya xilli ay ciidamada Suuriya ay qabsadeen dhul cusub mid kamid ah kooxaha mucaaradka oo waaweyn lagu magacaabo Jaysh al-Islam ayaa wuxuu sheegay in ay dib u sii abaabulhayaan kumanaan qof ayaa ka qaxay duqeymaha bariga Quuta ka socda kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha Suuriya ayaa waxay dhankooda sheegayaan in ciidamada Suuriya ay la wareegeen 4 meelood hal meel markii loo eego bariga Quuta qaramada midoobeyna waxay sheegtay inay heshay fasax ay gargaar ku fidiso maanta bariga Quuto Gorad Maxamed Ali barnaamijka Fiid wanaagsan Nairobi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in si degdeg ah wax looga qaban doono cabashooyinka garsoorka hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli ay isa soo tarayso isqabqabsiyada ku saabsan dhulka magaalada Muqdisho qodobkaasi oo faahfaahsan waxa ay noo aqrinaysaa wariye Nasteexa Maxamed Doore madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in ay soo gaarayeen dacwado iyo cabasho uga imaanayay maxkamadaha iyo garsoorka dalka madaxweynaha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed in ay helaan garsoorka iyo cadaalad lagu kalsoonaan karo maadaama cadaaladu ku xiran tahay horumarka laga sameeyo dhinacyada amniga iyo xasilinta dalka
waxaa ii soo dhammaaday daraasaad aan muddo dheerba ku hayay cadaaladda iyo garsoorka dalka waxaana la gaaray wakhtigii la sixi lahaa dhowaanna waxaa jiri doona isbeddel arrintan ku saabsan ayuu yidhi madaxweynaha oo khudbad ka horjeediyey xildhibaanada labada aqal muddo dheerba waxaa soo jiitamayay dhaliilo iyo eedeymo dusha looga tuurayay habka ay u shaqeeyaan laamaha garsoorka iyo maxkamadaha dalka gaar ahaan dacwadaha la xiriira muranka dhulka oo dhibaato weyn ay ka taagan tahay Steexa Maxamed Dhoore barnaamijka Fiid Wanaagsan Nairobi maamulka magaalada Balad Xaawo ayaa isbuucan xiray xuduudda uu la wadaaga maamulka Mandheera iyadoo oo maamulkaas magaalada Balad Xaawo uu siiyay muddo 3 maalmood oo digniin ah ganacsatada labada dhan qodobkaasi oo faahfaahsan waxa inoo aqrinaysa wariye Miski Maxamed Caate waxaa weli xiran xadka ay wadaagaan degmooyinka Mandheera iyo Balad Xaawo ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyadoo maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay in dhankooda ka xiran yahay xadka maalintii shalay sabab la xiriira muran ka taagan darbiga Kenya ay ka dhisaysa xuduudda xirnaanshaha xuduudda ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxbarashada ee labada dhinac iyadoo ardayda degmada Balad Xaawo ay aroor kasta aadaan iskoolada ku yaala ismaamulka Mandheera sidoo kale waxaa la joojiyay qaadkii ka imaanaya dhanka Kenya iyadoo la gubay maanta qaad si sharci darro ah kusoo gudbay xadka mas'uul ka tirsan maamulka Balad Xaawo ayaa sheegay in wali Kenya ay wado xadgudubyo joogto ah isagoo dawladda Kenya ku eeday inay wado dhul balaarsi Kenya ayaa ka dhisaysa darbi xadka ay la leedahay Soomaaliya waxaana ka dhashay dibadbaxyo ballaaran oo ay sameynayaan dadka deegaanka Miski Maxamed Caate barnaamijka Fiid Wanaagsan dawladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay ku barakaceen dad dhan 250,000 oo qof colaadii u dhaxaysay Oromada iyo Soomaalida qodobkaasina waxa inoo dul istaagay wariye Axmed Yuusuf Sheekh Cabdi dawladda Itoobiya ayaa shaacisay in 250,000 oo qof ay ku barakaceen iska horimaadyadii ka dhacay bilihii la soo dhaafay xuduudda Oromiya iyo deegaanka Soomaalida Mitiku Kaasi oo ah gudoomiyaha guddiga maareynta khatarta masiibooyinka qaran ee Itoobiya ayaa sheegay in barakacayaashu ay awoodaan in ay soo laabtaan kadib markii shir ay yeesheen mas'uuliyiinta iyo odayaal ka kala socda labada gobol bishii February waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumaddu ay ka shaqaynayso in ay dib u celiso tiro dad ah oo dhan 600,000 oo qof oo ku barakacay iska horimaadkii bishii Abriil ee sanadkii hore kaasi ayaa sidoo kale sheegay in 86,000 oo qof oo ka mid ahaa kuwa ku soo laabtay guryahooda lagu dayactirayo gacan qabashada madaxda dawladda federaalka ah iyo gobolada dagaalka labada dhinac ayaa xoogaystay bilihii la soo dhaafay waxaana ku dhintay dad badan halka sidoo kale ay ku barakaceen 10,000 oo qof labada maamul ee Oromada iyo Soomaalida ayaa midba midka kale uu ku eedeeyay inuu weerarka ku soo qaaday deegaanka ay maamulaan balse hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa marar badan ku eedeysay ciidamada gaarka ah ee labada maamul ka kala tirsan in ay geysteen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ugu dambeyntiina walxa ka mid ah maadada lagu sumeeyay basaas hore oo u dhashay dalka Ruushka ayaa la helay warkaasina waxa inoo faahfaahinaya wariye Siciid Gadaf Galayr warar soo baxay ayaa sheegaya in saraakiishii baar ay sumeyntii magaalada Salisbury ee dalka Britain lagu geystay basaas hore oo Ruushka u dhashay iyo gabadhiisa ay qaybo ka mid ah maadada sunta ah ee loo adeegsaday ka heleen maqaayad bisada lagu iibiyo ay ka casheeyeen maadada lagu sumeeyay ayaa laga helay meel gooni ah oo kamid ah maqaayada waxayna mas'uuliyiintu tilmaameen inaysan jirin cadeymo muujinaya in cid kale wax ku noqotay Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia waxay wax ka cuneen maqaayada Zizi axadii la soo dhaafay waxaana la helay 2 saacadood kadib iyagoo yaal kuraasta dushooda maqaayada Bizaria waa mid kamid ah 5 meelood oo xudun u habaaritaanka sidoo kale waxa meelaha la baarayo kamid ah gurigiisa Skripal iyo halkii lagu aasay xaaskiisa iyo cunugiisa xilli sii horeysay wasiirka arrimaha gudaha Amber Rudd waxa ay sheegtay in baaritaanka booliiska lagu ogaaday in ka badan 200 oo cadeymood waxayna amaantay xirfadda booliiska waxayna sheegtay inay ahayd mid xawli ku socotay waxa ay sheegtay in dawladdu ay adeegsanayso ilo wareedyo badan si ay isugu daydo inay aqoonsadaan cidii mas'uulka ka ahayd isku dayga dilka
baaritaankan waxaa diiradda lagu saaray sidii loo hubin lahaa in dadku ay nabad qabaan iyo sidoo kale inaan ururino dhammaan cadeymaha sidaasi darteed wax walba way kala cadaan doonaan ayay tiri booliiska ayaa sidoo kale sheegay in cid kasta oo haysa cadeymo dheeraad ah ay soo dhoweynayaan mustaqbalka iyagoo qayb ka ah baaritaanka ku dhowaad 180 ka mid ah militariga ayaa lasoo dhoobay Salisbury si meesha looga saaro gawaarida iyo waxyaabaha kale ee la rumaysan yahay inay wasakhaysan yihiin Skripal waa 66 jir waxay Russia ku eedeysay inuu ka gudbinayay xogo sir ah balse dalka UK laga siiyay magangalyo sanadkii 2010 Russia waa iska diiday ku lug lahaanshaha sumeynta ninkan dhanka kale xogayaha arrimaha dibadda ee dalka UK Boris Johnson ayaa sheegay in dalkiisu jawaab ka bixin doono haddii lagu helo in Moscow ay ku lug leedahay arintani Saciid Gadaf Galayr barnaamijka Fiid Wanaagsan hagaag daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay guud ahaan barnaamijkeeni Fiid Wanaagsan oo idin la socodsiinaya anigoo ah Fakada Maxamed Axmed waa soo saaristii Miski Maxamed Caate iyo kaameradii Axmed Yuusuf Sheekh Cabdi tan iyo kulantadeena dambe tan xigta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo